lacagtii dowladda Soomaaliya soo mari jirtay markay noqoto gobolka Sool toos waxaa loo dhiibaa imika garaadada toos loo dhiibaa arrangementkaas mid la mid ah awdal ahaan ma la heli karaa well horta dadka intooda badan anigu xitaa ma ogeyn 2017 wixii ka horreeyay ma aan ogeyn waxaan islahaa un adduunka si kale u shaqeeya laakiin 2017kii markaan ku soo laabtay for the first time muqdisho aan ku soo laabtay markuu farmaajo yimid contact badan oo dhanka siyaasaddan arkay soomaalida siyaasadda aad bay u xiisaysaa xalane dad baa waxay yidhaahdaan especially reer koonfur badan ilaahow xalana maan xirno waddankeena waanu hagaagi lahay waa dadkaas waxaan ku tilmaamaa crazy dad waalan xalane waa meesha waddankan aad u jeedaan ee baaxadda lagaga maamulo weli waxaan la sii yaaba ku yidhaahda waryaahe atmis iyo amison iyo ugandhes iyo afrikaan baa idin waardiisa lacagaha ugu badan ee waddanka soo mara more than 85% haday aan lahayn kabka dhaqaalaha waddanka budgetariga trainingka internal displaced people wax walba oo economic output ah oo yimaada waxay ka yimaadaan xalane sidaa awgeed cid xiri kartana ma jirto cid u dhawaan kartana ma jirto $100 ee xalane yimaada 60 wax baa lagu maamusha 40 baa ummadda Soomaaliyeed soo gaarta sidaa awgeed budgetary system buu leeyahay kaasoo waxyaabaha hadda laga wada hadlay ergeyada waxa kamid ah Somaliland project bay iibinaysaa in lacagahan si public aan loo bixin waagii farmaajo la bixin jiray si public ah xogaa antagonise lagu sameyn jiray anigu wax weyn uma arko haddii public loo dhiibay haddii si hoos loo wada dhiibay wax big deal ma lacagtan as much as Somaliland ay leedahay as much as reer awdal ay leeyihiin as much as reer Kismaayo ay leeyihiin waa lacag ku timid magaca Soomaaliya waxaan kaloo aaminsanahay baasaboorka Soomaaliya qof walba ka dhaxeeyo qofkii awdal jooga Hargeysa jooga Gabiley jooga waa ka dhaxeeya qofna monopoly uma leh this is how the system works laakiin tan ah in project la keeno $120 million hadda ka hor aan arkay la keeno oo 1 milyan kaliya la siiyo awdal 2 milyan la siiyo lascaanood rest of them regionka centerka la geeyo taasi dee ma ahan qaabkay u bixiyaan markaa waxay tahay oo weli loo bixin jiray demographic bay u bixiyaan per population per city how many cities for example let's say magaalada Boorame iyo Gabiley per population haddii la soo eego isku mid noqon maayaan marka isku budget noqon maayaan marka waxay noqonayaan per population health service-ka infrastructure lagu sameeyo intaasoo dhan baa la soo qoraa rag qubaro oo Soomaali haddaan isku jirta soo qorto og waxaas oo dhan kadibna waa la soo qoondayaa lacagaha waa la dhib fasax loo soo dhiibaa haddii marka siyaasiyiinta marka jooga oo representative ku ah xagga jooga awdal uga ah federaalkan uga ah xagga kalena uga ah ay ma aragtay arrintan xoog ma doonaa tirahdid nabad baa taala dee nabad aan cunto lahayn waxba tari mayso anigu had caaw nabad wanaysan karaa meesha aan joogo waa meesha ugu nabad fiican baan jooga caaw laakiin haddaan wax cuna aan haysan waxba ii tari mayso sidaa awgeed Dr. Bayle markuu joogo kale oo aan dhihi karo one of the maaragtay most experienced most educated economist ah oo ayaan dhexdaas markii uu Hargeysa yimid oo soo laabtay oo dad badan lagu kacay anigu aan ka soo horjeeday runtii xataa aan ku daray tan Nairobi baan isku aragnay clip uu duubay Dr. Bayle waa qaldan tahay baan clip inaad duubto ma ahayn baan idhi why would you apologize baan idhi anigu waxba uma arkaan idhi haddii Muqdisho aad joogtid Jowhar haddaad joogtid Garowe Boorama ama Hargeysa same things waa magaalo Soomaali baa tagtay meel baa shaqaystay waddanka si distinction ugu shaqaystay wanaagsan economic actually bogtu asaga joogay isbedelka ku dhacay it was unparalleled xilligii kacaanka xitaa dhaqaalihiina waa kordhay marka waxaan ka wadaa dadkaas oo kale ayaa loo baahan yahay inay yidhaahdaan iyo professor Samatra jooga labada professor isla dhashay oo ay abeen dhaweyd clipkiisa aan soo share gareeyay ani I always admire professorka labada professorba si fiican waan u aqaana waa dad ma aragtay hadda ka hor baan waxaan adigu ma qalantid baan madaxweyne xataa Soomaaliya ka noqotay you're well too educated well too sophisticated marka hadaladiisa habeen dhaweyd uu yirina waa wax jira oo qofkii soo baxo un meesha loo daayo laakiin yaan isleexleexinin marka waxaan kusoo gabagabaynayaa waxaa loo baahan yahay dadka representative-ka awoodda leh cod kale inay hadlaan oo yidhaahdaan awdal oo kale lama siin karo merely some change oo 2-3 million per population iyagana wax extra la siin maayo because they are awdal laakiin in la siiyo waxay xaq u leeyihiin haddii Kismaayo 1 milyan qof ay ku nool yihiin
بورمي يكون لهم 2 مليون بورمي more money double baa la siinaya that's how it works laakiin waxaa laga rabaa dadka u jooga baarlamaanka iyo sanadka federaalka iyo kuwa u jooga somaliland in arrintan ay tirtirgeliyaan unfortunately intooda badan arrimahaas xoog ma saaran waa ka baxay عبد الناصر صولة أدي أضبط ما تصنتها أبد الكسحة aad iyo aad Mr. Cabdinaasir aad iyo aad baad mahadsantahay muhiimadda horta waxa weeyaan taa waxaaba aniga la horeysa dowladda federaalka ha ahaata ama dadka soomaalida kale inay ogaadaan matalan erigin hadda lasoo diro oo kale haddii waa inuu fahmaa haddii uu u haysto inuu waqooyiga muuse keliya matalo inuu ku fashilmi doono sababtoo qadiyad ahaan ma matalo runta marka laga hadlo leanna systemka waqooyiga u qaybsan yahay waxa weeyahayba SSC awdal iyo intan dhexda oo laba kala qaybta marka isagu hadda uu wax walba siiyey oo maamulo oo rabo inuu Ramadaan iyo Abadro walaalo waxaan u soo qabsaday hal point oo ma oran karaa idinkoo mahadsan maadaama gacana taagnayn kasida mali maqlaa سيف عبد الرحمن su'aashii Ramadaan iyo jawaabtii Cabdinaasir laba point waa ka soo baxay kolbaaniga iga soo baxay point waa point uu ka tagay ninka la yiraahdo Cabdinaasir oo Cabdinaasir wuxuu sheegay lacagta sida loo qaybinayo laakiin wuxuu ka tagay cidda loo dhiibayo su'aasha Ramadaanna taasay ahayd sida loo qaybinayo ilaahuma yahay 5 milyan noqoto ama 50 milyan noqoto awal waxa loo dhiibi jiray systemka Hargeysa suu rabo u maamuli jiray hadda marka wixii isbedelku wuxuu yimi SSC ba gacanta loo galiyaa ha yaraadaha badnaado it doesn't matter that's the update ka dhacay kaasoo ahaa waana sida loo awdalnaa u baahan tahay in awdalnaa ay samaysto system iyo entity si ay iyada wixii loogu talagalay ugu soo hagaagto maadaama wixii loo soo diri jiray ay waxba ka soo gaari jirin taasoo qodob Cabdinaasir qodobka waxaan wadaan ku tagay qodobka labaad Cabdinaasir taabtay oo very important ka xaweeye waxa lagu qaybinayaa buu yiri populationka that's why systemkan hadda dhalinyarada marka dhageystay Somaliland diriska waxa ka dhaadhacsan kulligood qofka hadii taariikh iyo reality been lagu abuurana it's hard very hard inaad tiraahdo war maaha sidan ma waa saas markaan waan badhaafaa lama murmo waxa ka dhaadhacsan SSC oo dhan inay lama degaan tahay gobolka Sanaag wixii ceergaabe xagga bariga looga aado ama beesha warsigeli ama beesha harti intay degto iyo beesha dhulbaantay intay degaan oo sool ah inay laba degaan tahay konton kun oo qof ku nooshahay kaliya magaalada Caynabo ay ka badan waxyaalo noocaas oo iska khuraafaado oo laba qof oo waaweyn ay isku sheekaysan jireen laakiin systemka abuuray wuxuu u abuurayaa inta Cabdinaasir sheegay wixii yimaada hadhow hadii xataa la yiraahdo hal la qaybiyaba si loogu andacoodo marka waxa la oranayaa for example laas caanood oo kale waxa ku nool hadda iyaga waxa ugu qoran gobolka Sool waxa ku nool 300 iyo xoogaa kun laas caanood kaliya ku nooshay iska wada xudun iyo Caynaba iyo Taleex iyo Boocamo iyadoo hadda degmo xisaabsan meesha la yiraahdo Soomaaliland marka loo eego markaas waxay ka sii dareen yiraahdeen dadka majority digso Caynaba ku nool yihiin soo jeedid micnuhu waxa weeye waxaan adduunka laga soo shaxaadayo si Caynaba loo siiyo aan kuwana laba jeer waxa ma soo gaarayaan marna waxa ma soo gaarayo systemkii ma ogola marna waxa ma soo gaarayaan same goes for Border waqooyi ilaado oo magaalo labaad the second most populated city in North Somalia way and Borma hasa ahaatee iska daa Burce Gabiley waxa gala ayaa waxay ka badan yihiin gobolka Togdheer oo dhan iyo gobolka Sanaag oo dhan marka pointiga waa very important point oo ah marka adduunku leeyahay waxaanu ku bixinaynaa mucaawanaadka waxa rabtaa noqoto whatever field it is and populationka systemyadani waxay markaas si deliberate ah u sameeyaan in number populationka lagu ciyaaro deegaana qaar kood la yiraahdo waxa degan 2 qof deegaana qaar kood la yiraahdo waxa degan 2 milyan ama 10 milyan ma garata hadhowna wax ma garatadii iyo dhalinyarada ciyaalkeena wixii qaadaan oo meelaha kaga hadaaqaan labada point waan u soo qabsaday waa maasintii salaam calaykum maxamed cilmi aad baad u mahadsantahay anigu bishii afraad ayaan Hargeysa joogay waa bishii afraad I think waa April last year 2022 Hargeysa koonfurteedan ka baxay waxaan soo maray 12 tuulo ayaan soo maray waa 12 tuulos ayaan soo maray koonfurta ilaa xadka Ethiopia ayaan tagay dhulkaas oo dhan oo dadka deegaankayga ay degaan wadada ayaga dhista sayba maqashin wadada ayaga dhista
asfiican MCH-ka ayagaa dhista weligiin yaalihiin ma aragteen waddo uu reer uu dhistay waxyaabaasha ugu cajiib la yaabka badan waa waddo dheer oo 75 kilometers ah oo reer uu dhistay MCH uu reer dhistay wax allaaliya wax ka soo gaadha habeeraatee ma jirto deegaamada markay noqoto dee mashaariic baliyo wax allaaliya wax ka soo gaadha ma jirto laakiin deegaankooda waxaa ku yaala cashuurtii madaarta oo lagu qiyaasay 20 milyan waa per year 20 million waxaa ku taala sayladii ugu weynaa hargeysa waxa ku yaala waxaasoo dhan waxaa degan ku dhowaad almost 600,000 people khaas inta beeshaydu ay degto oo keliya 12 tuulo markan soo maray wax allaali wax ka dhisna habeeraatee ma jirto waxaa igu si layaabka badnayd markii aan tegey degmada Inaguuxa oo xuduudda Ethiopia ku taala oo dee baabuurta berbera markay ka soo baxaan dhinaca Ethiopia alaab ka geliya cashuurta laga qaado customka Inaguuxa waa $20 waan u qaadan waayey waxaan ku yidhi ninkii waxaad i tustaa resiidka i tus resiidka waxaa ku qoran $20 cashuur safar kalaan u baxay galbeedkaan tegey wallaahi oo bilaahi tollahi inaan been idiin sheegayne waddada waxaa dhisay Jarmal waa Jarmal ayaa dhisay waa mashaariic caalameed oo caalamka lagu soo qaatay ayaa waddada Jarmal maaragta lagu dhistay Hargeysa ilaa Gabiley waxaa dhisan milyan dollar oo daama wallaahi oo bilaahi oo tollahi markan waddada aan marayay waxaan arkay dad maaragta goob yar isku ururiyey marka waan yara istaagay waxaan yidhi halkan maxaa ka dhacaya waxaa laygu yidhi hay-ad ayaa lacag ku qaybinaysa waa hay-ad ayaa lacag ku qaybinaysa marka sababta su-aashaan u weydiiyey cabdinaasir waxay ahayd dee mashaariicdan lacagtan inay timaado waa la ogyahay laakiin sida loo kala qaybiyo dee cadaalad maaha marka waxa inoo wanaagsanba dee reer walba inuu intiisa uu ka helo dowladda dhexedda haddaana si cadaalada maaragta loo kala qaybinayn marka I don't know awdal dhowr sheer baan tegey ayadana waa la mid wax alaali laga dhisto meesha ma jirtaba ayadu laftigeedu laakiin 2008 bay ugu dambeysay gobolka marka intaas baan idinku daraya waxaa ku xiga cabdulaahi ku soco cabdulaahi waxaan kaa iloobay gaariga markuu ka baxo Gabiley oo Ethiopia galo cashuurtu waa $3 waa $3 waa isla custom waa isla xuduud halkaana waa $3 halkana waa $20 marka taa waxay ku tusaysaa cunaqabatayn cad waxa ku xiga cabdulaahi ku soco cabdulaahi maaga waxaan u malaynayaa maya dhowr cabdulaahi wey ka waafaqay marka ha cabdulaahi waa lagu maqlaa laba cabdulaahi baa jira aad iyo ninkaasi waa hoos baan u dejiyay soo qabsi marka laakiin hadda cabdilaahi rooblaha inoogu socdo wallaahi niyahow cabaar waa idin dhegaystay mana badna intaan idin maqlay laakiin waxaad ka hadlayseen waa waxaan muxuu ahaa resourciga waddanka sida loo qaybsadaa wey anigu ma malaynayo haddii caawa dhan laga hadlo wax macnaha gaara inay ka soo baxayaan sababtoo ah resourciga sida loo qaybsado markii aad meesha tagto dhulku siduu u yaallo inta infrastructure kale inta dhismaha laga sameeyey intaan dhismaha laga samayn waxa waaye waa very polarized opposite isku yihiin qaybna waad aragtaa qaybna waxa weeye waa iska meel cidlaa waxaad u baahan waxa markii laisku tuurtuuro ama laisku qabto ayaa hadalla laga bilaabaa laakiin waxaana uma baahna waa wax iska cadow bannaanka iska yaala in laga hadlo waxa keliya oo laga hadli karaa waxay tahay arrinkan maxaa laga samayn karaa sidee wax u jiraan kulley anigu sidaan taariikhda ku ogahay awdal howl badan baa u taal mid kalena waan ogahoo waayahan ka bartay dadka taariikhda ogna way fahamsan yihiin idinkuna waad fahamsantihiin waa haddii aadan isyeelyeelayn
markii aad doonayso inaad change samayso waxaan la yidhaha theory of change laba unbaa lagu sameeyaa mar waxaa lagu sameeyaa wadahadal iyo narrative iyo wax la dhiso iyo dood iyo xisaabtan iyo wixii la halmaala taasi waxay ka shaqaysaa marka meeshii doodi ka furan tahay oo xisaabi ka furan tahay oo la kala gar qaadanayo oo qof walba khaladkiisa hadduu arko uu mataqaanaa ka garaabayo meeshaas narrative iyo sheeko inbaa wax lagu dhammayn karaa iyo sharcigoo dib la isugu laabto laakiin markii horeba waxaan haddii maaragta loo sameeyey ku talagal loo sameeyey dee adiga waxa weeye inaan waxba lagu qabo narrativekeedu inaad sheegto wax macnaha ma samaynayso already waxaan waa la dhisaangareeyey muddo dheeraa lagu soo waday sidaasayna noqotay waxa ku yaalla marka waxaad haysataa laba option unbaad haysataa mid saddex xitaa ma leh waa laba keliya mid waxa weeye sida ay tahay inaad isaga samirto oo tiraahdo waayuhu iyagaa wax bedeli doona malaha dadka wax idinkala dhexeeyaan ayaa caqli yeelan doona ama xisaabtan xilligeeda la gaari doona inaad tiraahdo ood isaga samirto oo weliba aadan ogeyn xilli uu noqonayo iyadu waa optionka labaad waxa weeye qofku waxa uu doonayo ama ummaddu waxa ay doonayso hadday weyso bilaash laguma siiyo bilaash kuma hesho adduunka waxaan la yidhaha freedomka ama ha ahaadaan personal level ama ha ahaadaan community level ama nation level ha ahaato waxay rabta ha noqoto qofka doonaya ay wax ka maqan yihiin waa inuu naftiisa huraa waa inuu dhiiggiisa huraa ilmaha yararka waa aragta markii ay dhashaan markii caloosha hooyada ka soo baxaan isla markii afka qeyle ku daran aad bay u qeyliyaan way ooyaan waay sababta wax kala ma meelu ku jiray very warm ah heerkulkeedu u fiican yahay isaga comfortable ku ah dibadda la keenay hawo qabow iyo environment iyo atmosphere uusan aqoon soo galay intuu adaptation kala sameynay qeyladaas iska soconaysa waa marka uu yartaa ilmaha yarka ay dhashay yihiin boorama marka anu mid waan oga wato geographical iyo waqtigu u heelin maayo runtii waxaan u hadlayaa si pragmatic iska hadal maaha si scientific oo macno ku dhisan aan u hadlayaa geographic iyo meesha ay ku yaalaan favorable uma ahan haddana waa dad mataqaanaa dadku marka ay ku nool yihiin dholalkan qaboobaha ah muxuu ahaa oo sanadkoo dhan inta badan iska qabo ama roob badan yahay cabdillah ma rabina kaa dhex galada waxaa hadlaya yani intana juqraafi ka aqoon lagu faa'iideyn karaa maxaad ugu malaynaysaa inaan diyaar u ahayn juqraafi su-aashaada ma fahmin igu soo celi waxaad tiri geographical diyaar uma aha marka sababta kaa keentay maxay tahay geographical diyaar uma aha ma dhihin geographical favorable uma ahanaan ku iri marka labadaas macna u dhaxeeya haddaad leedahay macneena waxay qaadanaysaa muddo dheer wax kasii baxaya dadka meeshan jooga badankooda intaas way fahmayaan muxuu ahaa marka waxaad moodaa haddii struggle ay sameeyaan struggle-kooda uu ka badnaan doonaa kan laascaanood geographiga laascaanood favorable waaye favorable wuxuu u yahay soomaalidu principal qaab dawliya iyo principal dawladeed soomaalidu maba taqaanba kumana howlgasho fal kasta oo ay qabato noocuu rabaa aado ugu dambeynta wuxuu u dhammaanayaa qabiil laascaanood marka arrinkeeda qabiil u dhammaada qabiil markuu u dhammaadana dabcan keligood maaha dad badan oo walaalahooda oo garbaha ka taagan powerland ayaa ku haraysan geography kale dadkaas marka way difaacayaan maalmihii dagaalka u horreeyo bilowdana waan ka hadla sidii aan uga hadlay noqotay laakiin waxa weeye boorama awdal in isolation geographically isolated waa markii loo fiiriyo soomaalida kale marka meesha ku yaalaan locationku haddii struggle galaan struggle-koodu wuu ka dheeraanayaa wuuna ka dhib badanayaa kan laascaano
marka hortooda waxa yaala labada option struggle-ka inay u bareeraan oo ilaahay tala saartaan hore u socdaan ama inay iska samraan oo waayuhu waxay bedelaan ay waqtigooda sugtaan intaas in la fahmaan jecelahay waxa kaloo laga hadlayay kulay meelaha kale hadda anigu wax badan ma ogeyn laakiin hawdun baan ka soo qaatay ama santiin أبيض وما عبد الله لا شيء ما ربنا ما حير المالنا هنا أقوم صادق لا ده ما أوجد دجان كينات لكن واحد قاعد هذا كني إن مشاهد قبل باينا وقرن ده كدجان كأول دجان ملا هذا كإكسير بيد دجان كأقوى أكتر سلا كبدن غرافيك علينا صادق هاي مش الدغالة وكذا عيان من كل سعنة والفلا هذا أصلا صليش inta badanna boqolkiiba waxaan dhihi karaa 99.9% hadallada xanaafta waxay ka yimaadaan dhanka iyo Somaliland bay ka yimaadaan weli qofkii arkay la wadaago qof Soomaali mas'uul ka ah oo Faisal ama Muuse ama Cirro ama qof kale oo mas'uul ka hadlaya they don't have time waa go'aan mar hore la gaaray oo la yiri we don't marka madaxda qaranka Allah hada si toos ah u tiraahdid situationka Somaliland muxuu yahay waxay leeyihiin Somaliland waqtigii horaan ka hadlaya dagaalada intiisan bilaaban ka hor waa meel stable ah economically waa isku filan dad badan baa ku nool oo Soomaali ah hadday sidaa ay go'aansadeen sidaa ku joogay wax issue kama jiraan sidaan baan ku haynaa ma doonayno hadda in dhibaato iyo buuq iyo dagaal u dhaco qaxooti iyo dad ay kala firdhimaan Soomaaliya taas ma doonayno waan I think siyaasad qabow oo aad u wanaagsan laakiin meeshii laga rabay dawladda Soomaaliya kama aysan istaagin of course anigu ma aaminsana ciidan in loo soo diro oo maaragtay ay ka dagaalamaan laascano taas waa unrealistic wax dhici kara maaha waayo sharciga dastuurka waddankana ku ogolaan maayo waayo dawladda Soomaaliya dastuurka waxay u aragtaa sida hadda u aragto haddii laascanood iyo dagaal ka socda ay dhinac la saftaan waxay la mid tahay iyagoo Jubbaland iyo Gedo la saftooyo kale la mid tahay according to them iyo ruleskooda marka dawladdu ay ka gaabisay waxa la rabay pressure in la saaro pressure dhaqaale la saaro waayo dhaqaalaha inta ugu badan millions hundreds of millions Muqdisho soo maraa oo la yiraahdo this is unacceptable in maartay table isugu keenaa oo arintan la xaliyo laakiin sidii rabay lama noqon hadda marka muxuu sameyn karaa ninkan yimid dadka Soomaalida intooda badan kuma faraxsana kuwa dawladda taageera ani dawladdan taageera by the way boqolkiiba boqol dawladdan Muqdisho waan taageeraa oo hadda ka dhisan Soomaaliya aad baan u taageeraa laakiin dawladda taageeradeeda ma ahan in maartay in dhanaan lagu taageero oo blind lagu taageero laakiin muhiimaddu waxay tahay timingka ay soo xuleen Cabdikariin waa timing runtii qalad ah hadda waxa la rabay ergey soo xalliya arintan laascanood xalin bay u baahan tahay uma baahna propaganda iyo dagaal iyo aan ka badinay aniga kule xuduud Ingiriis iyo wuha uma baahna waxay u baahan tahay in la xalliyo haddii aan la xalinin arintan berri ama saad dambe meel ka dheer bay gaari doontaa too late bay noqon doontaa marka waan ka baxay cabdinaasir aad baad mahadsan tahay dhawaan inaad maqashay